السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا برنامج كيني تاها إنسبايرس غارهان قيبتيسا بوك أخري بوكنا كتالي برنامج كبوك أخري بوكنا كتالي سيدا عادة أهيد مركز توحان إذن كلا وداق جيري بوغاك أما قرالا آن إسلايا هاي ومديني إداد كان أي مهم ويهين marka maanta waxaan idin la wadaagayaa khulaasada book laga qoray ninka la yiraahdo madaxweynaha wadankaasi Shiinaha ama Shiinaha la yiraahdo Xi Jinping khulaasada booga intiisa badan wuxuu ka hadlayaa qaabka horumarka ay u gaareen dawladdaasi ay u gaartay wadankaasi Shiinaha ayuu ka sheekeynaya gaar ahaan qaabka ama siyaasadda ay u raacay xisbiga talada haya ee wadanka Shiinaha shuuciyada ku dhisan guud ahaan waxay yiraahdaan shuuciyada cusub ee wadankaasi Shiinaha ka talisa madaxweynahan xisbigiisa uu hogaamiyo siyaabaha ay raacday ama hadafkeeda ugu muhiimsan waxa kamid ah bay dhahaan in ay horumar wadanka gaarsiiso horumarkaas oo taabanayo dhinacyada nolosha oo dhan oo aan ku ekeyn kaliya dhanka dhaqaalaha ama dhan gaar ah aanan u janjeerin balse dhinacyada nolosha oo dhan ku qotama marka si ay horumarkaas u gaaraan xisbigaasi wadanka Shiinaha ka taliyo waxay leeyihiin wuxuu raacay afar mabda ayuu raacay base uga dhigay siyaasadiisa ku wajahan horumarinta wadankiisa waxaan idin la wadaagayaa marka si kooban idin la wadaagayaa afartaas mabda maxay yihiin afartan mabda sidee bay u fuliyeen maxay natiijo ah ku gaareen waxaan ognahay wixii ka horeeyay 10 sano hadda la soo dhaafay wixii ka horeeyay 30 sano ee ka horeysay 2005 ama 2000 wixii ka horeeyay Shiinaha waxa lagu tirin jiray dawladaha ugu hooseeyo dhaqaale ahaan dadka ugu faqriga badan dunidana waxay ku noolaayeen wadankaasi Shiinaha balse 10 sano ee u dambeysay si isku mid ah ayaa waxay u sameynayeen horumar dhaqaale oo aad u xoogan waxaana la rajaynayaa inay weliba soo noqon doonaan dunida awoodda dawladeed ee dhaqaalaha dunida hagi doonto sanadaha soo socda wixii ka dambeeyo 2025 wixii ka dambeeyo marka aan eegno marka afartan mabda maxay yihiin xisbiga shuuciyada wuxuu dejiyay si dhaqaale ahaan iyo nolol ahaan wadankiisa horumar u gaarsiiyo afar mabda ayuu raacay mabda koowaad waxa way waa wadan jecel dhammaan hogaamiyaasha iyo saraakiisha xisbiga iyo qeybihiisa ayaa waxa lagu beeray inay dadka ku hogaamiyaan kuna abaabiyaan kow wadan jecel waxay leeyihiin hadii qof kasta oo Shiinees ama wadankaas u dhashay aanan jecelayn wadankiisa way adag tahay wax isku haynayo ee ummadaasi wadanka ka soo jeedo ama muwaadiniinta wadankaasi inay si guud ah u wada shaqeeyaan horumarka dalkan ay ka shaqeeyaan way adkaanaysaa ayay dhaheen sidaas darteed waxay abuureen wadaniyad ama wadan jecel ayay abuureen wadaniyadaas oo ku dhisan marka horumarka wadanka Shiinaha ku dhisan ayay abuureen qodobka labaad ama mabda labaad ee ay raaceen waxa way waa shaqo adeeg waxay leeyihiin gaar ahaan tabaqada shaqeysa dadka xilliga shaqada ku jira 25 ilaa xilliga 65 ay dadka ku howlgab ku noqdaan inta u dhaxaysa waxa la yiraahdaa dabaqada shaqeysa xilligaas dadka shaqada ku jiro ama dabaqada shaqeysa la yiraahdo waxay xoog saareen in qof kasta inta tabartiisa ah wax soo saar uu sameeyo wadanka waxay leeyihiin hadii qofkaas xilliga shaqada ku jiro aan wax soo saar sameynin ama caajisnimo iyo leesinimo uu la imaado waxay noqonaysaa in wadanka Shiinaha ama muwaadiniinta Shiinaha ay dad kale iska raacaan oo dhaqaale ahaan ay dib u dhac ku yimaadaan sidoo kale dadka culimada ah ee wax bartay academicianada ah iyo nooc kasta culimada leh waxay leeyihiin hadii ay ka joogsadaan in cilmi baaris sameeyaan ayagana waxay ku qasbanaanayaan in kale ay noqdaan dad dadyoga dunida kale ku dayda aan wax soo kordhin karin sidaas darteed bay waxay sameeyeen ay raaceen siyaasad ku beesgareysan shaqo adeeg غير caadi ah oo ku qotama haday shaqada tahay caadiga ah haday tahay wax soo saarka caadiga ah iyo waliba dhanka cilmi baarista ku qotonta dhamaan dhinacyadaas ba waxay sameeyeen yani shaqo adeeg yani oo aad u sareeyo hawligiis aad u sareeyay raaceen qodobka saddexaad ama mabda saddexaad ee ay raaceen xisbigan shuuciyada cusub ee wadanka Shiinaha hagaayo uu raacay waxay leeyihiin waxa way waxay awood saareen hal abuurnimada hadii muwaadiniinta Shiineeska ah aanan la imaanin hal abuur waxa way badeecadoodii suuqaga dunida ma gaarayso sidaas darteed si markasta waxyaabo cusub badeeco cusub nooc cusub technology cusub loo soo saaro ba waxay aad u dhiirigeliyeen
dhankaasi hal abuurnimada qof kasto hal abuur la imaado in loo fangeliyo loo maalgeliyo waxyaabaha ay soo saaraan sidaasna hadday tahay culum iyo hadday tahay badeec noocyo badan ay cusub ay sidaa kusoo saareen mabda u dambeeyo ee ay raaceen waxay leeyihiin waa xiriirka xoojinta xiriirada dunida iyo xoojinta xiriirada dhexdooda ah dunida aan maanta joogno cid kasta way ogtahay in cid keligeed horumari karto intay mooro ama xero isku soo oodo waxay rabto samaysan karto ma jirto sidaas darteed dunida kale ayaa dad wax ugu baahan tahay aqoon ayaa u baahan tahay cilmi ayaa u baahan tahay badeec ayaa u baahan tahay waxaa ku qasban tahay inay isku xoojiso xiriiradan marka waxay iska wanaajiyeen xiriirada dhanka dhaqaale siyaasadeed iyo dhaqan ee dunida kalena waxay ku dadaalayeen in sanadihii ugu dambeeyay ay iska wanaajiyaan dunida kalena ay isu furfuraan afartaas mabda si loo fuliyo marka maxay raaceen tallaabooyin dhowr ah ayay raaceen tallaabooyinkaas waxa ugu muhiimsan waxay dhaheen madaxweynaha wadankaasi Xi Jinping shuuciyadeena wuxuu yiri kaliya kuma qasbanin in shuuciyad kaliya aan ku ekaano balse waxaan soo qaadan karnaa afkaarta kale sida capitalismka ayaan aragti soo qaadan karnaa aragtiyaha siyaasadeed ee dunida ka jira ayaan soo qaadan karnaa waa isku leeri karnaa tusaale ahaan waxay leeyihiin dawladda dhibaatooyinka bulsho ahaaneed iyo dhan soo kordha ayada ayaa mas'uulka ah oo yani waxay ku sameynaysaa faragelin balse wixii fulin ah ganacsi ah tijaaro ah waxaas dhan waxay u daysay shacabka ay u daysay iyadoo ku bisgareynayso waxaan ay dhahaan demand and supply ama baahida iyo oofinta waxaan ku bisgareysan ayagoo eegayaanba waxay isku dayaan meel kasta dhibaato ka soo korodho dawlad faragelin ayay ku sameynaysaa dhanka tiknoolajiyada hadday dhinacyo kale tahay faragelin ayay ku sameynaysaa sidoo kaleeto si mabaadi'daas afarta loo fuliyo waxay isku dayeen in la kordhiyo nolosha barwaaqada ee shacabka Shiinaha in la kordhiyo hadday tahay mushaaraadkooda hadday tahay adeegyada ay u baahan yihiin weliba iyadoo caawimaad badan loo sameynayo dadka tabaalaysan dadka beeraleyda ah mashaariic mega projects oo dhanka beeraha ay fuliyeen waxyaabahaas dhan si loo xoojiyo xayaatada rafaahada ku dhisan nolosha dadka Shiinaha ay u baahan yihiin si ay u xoojiyaan ayay u raaceen sidoo kale waxay sameeyeen inay ilaaliyaan shuruucda ganacsiga dunida ama ururada caalamiga ee ganacsiga waxay leeyihiin criteria ama shuruuc ama standards haddaadan imaanin aan alaabtaadi dunida kale aan loo dhoofin karin ama suuqyada laga celinayo sidaas darteed marka waxay isku dayeen inay ilaaliyaan shuruucda caalamiga ee ku qotanta dhankan ganacsiga iyo ayay ilaaliyeen si loo helo maxaa la dhahay si loo helo alaabtoodii iyo ganacsigoodii waxoodan space fiican ay u helaan waxay kala xooga saareen hadayna hadalkayga horaantiisana aan kusoo sheegay dhanka cilmi baarista iyo xoojinta tiknoolajiyada madaxweynaha Shiinaha markasta shacabkiisa iyo dadkiisa iyo cilmi baarayaashiisa wuxuu ku boorinayay in maanta tiknoolaji aan laga maarmaynin sidaas darteedna cilmi baaris aad ah lagu sameeyo dhanka tiknoolajiyada sameynta ribuudyada kuwaas oo wax badan fududeyn karo howlaha socda iyo speedka lagu shaqeynayo aad u dheeran karayo waxyaabahaas ayagoo raacayaba waxay ku guuleysteen in dhaqaalahoodii ilaa heer xilligan uu jiro corona xitaa horumar kobac uu sameynayay ay ku guuleysteen marka siyaasadaas ayay raaceen dadkii u baahan qofkii u baahan buugaas inuu akhriyo asigoo summarized ah oo Soomaali ku qoran ayaa tahay Inspires website-keeda ka heli kartiin halkaas ayaa kala degi kartiin ama Instagram-kan ayaad ka heli kartiin oo ka akhrisan kartiin ama kala degi kartiin oo ka akhrisan kartiin ama kala degi kartiin PDF-kiisa oo dhowr page ah halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa khulaasadii ku saabsaneyd dawladda Shiinaha iyo madaxweynaha Xi Jinping waa mahadsantihiin waxaan filayaa in laga faa'iideystay aad idin salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh